Mitt namn är Elena Eriksson. Jag är första kandidat från Hordaland i partiet Fred och rättfärdighet. 3 grunder att du kan stämma på mig. Första grund att för fred och rättfärdighet. Vi önskar att alla konflikterna löses kun med diplomati. Ingen vapen, ingen investering i krigsmaskineriet. magacaygu waa Elena Eriksson waxaana u taaganahay xisbiga FOR ee deegaanada galbeedka Norway. Waxa ay xisbigeena u taagan yihiin marka ugu horeyso oo ugu weyn muhiimadiisa iyo magaciisana uu xambaarsan yahay waxa ay tahay in dunida lagu soo dabaalo nabad. Waxaan ka soo horjeednaa dagaalada iyo isqabqabsiga dunida ka jiro. Waxaana aaminsanahay in xalka dunidu uu yahay in lagu wada hadlo qaab diblomaasiyadeed oo la joojiyo dagaalka iyo isqabqabsiga si lamidana ma doonayno in la sii maalgeliyo warshadaha hubka si dagaal kale uu dunida uga sii dhaco. waxaan u taagannahay sidii aan u horumarin lahayn dhanka waxbarashada iyo caafimaadka. waxaa jira dad badan oo Norway ku dareemayo in ay faqri yihiin taa oo aan doonayno in aan la dagaalanno si qof walba jeebkiisa uu noqdo mid u buuxo. waxaan sidoo kale xoojinaynaa arrimaha cimiladuna waxa ay ku xiran tahay in la joojiyo warshadahan hubka sameeya iyo qiiqooda si lamidana la joojiyo dagaaladan dunida ka socda. Och de flesta partier stämmer för krig, stämmer för dåligare miljö.